السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo wacanda wadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doona arrimo ku saabsan rajabeelka ku yimaada qofku marka uu beelo aragga oo ama xubin ka mid ah xubnihiisa ugu muhiimsan sida jirka oo kale waxaa jirta fikir guracan oo soo jireyna oo bulshada Soomaaliyeed in muddo ay aaminsanayeen oo dhahaya hadduu qofku beelo aragga ama qayb ka mid ah xubnihiisa inay ku adag tahay qofkaas inuu wax barto reer yeesho hogaamiye noqdo isla markaana uu ka mid noqdo dadka bulshada ku dhaxnool oo fikir aad iyo aad u guracan hadaba barnaamijkan gaarka ah ee arintaasi ku qaada dhigi doono waxa marti igu ah Cabdiraxmaan Muumin oo isagu agaasimaha guud ee hay'adda Fahan hadaba Cabdiraxmaan markuu ahaa daada 17 jir ayaa dhakhaatiirta caafimaadka Allah haye waxay ku wargeliyeen inuu aragga beeli doono kadibna waxaa daciifay aragiisa tan iyo markii uu gaaray sanadka 24 jir oo gabi ahaanba uu aragiisa waayay taasi Cabdiraxmaan waxay ku abuurtay murugo aad u ballaaran waa uu rajo dhigay waa uu murugooday run ahaantii waxa uu nolosha ka qustay hase yeeshee halka muusan ku harine waxa uu sameeyay isbedel Cabdiraxmaan muxuu sameeyay waa su'aasha mudan in jawaab u helo maxaa noloshiisa iska bedelay wali ma halkii uu jiifaa mise hurdadii iyo rajabeelkii uu ka kacayo horumar ayuu sameeyay su'aalahaas iyo kuwa la mid ah ayaan diyaar u ahay inaan weydiiyo Cabdiraxmaan Muumin agaasimaha hay'adda Fahan Organization oo aan dhihi karo ilays mugdigii ayuu ka soo baxay ilays ayuu u soo baxay wuxuu sidoo kale doonayaa ilayskaasi iyo faa'iidada faraha badan ee noloshiisa ku soo biirtay inuu boqolaalka kale ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastaba uu uga faa'iideeyo oo uu ka soo saaro godka cabsida iyo rajo dhiga oo uu keeno godka ama xarunta farxadda iyo iftiinka hadaba barnaamijkeenan waxaa marti ugu ah Cabdiraxmaan Muumin oo isagu agaasimaha guud ee organization-ka la yiraahdo Fahan Organization Cabdiraxmaan markuu ahaa 17 jir ayaa waxaa jirtay in dhakhaatiirtu ay u sheegeen inuu beeli doono aragiisa tan iyo intii u dhaxaysay sanadkii uu ahaa 17 jir ilaa 24 jir ayaa waxaa soo noloshiisa soo wajahday dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan inuu aragiisa daciifay hase yeeshee maalintii ugu dambeysay markuu da'diisu ahayd 24 jir ayuu aragga gabi ahaanba beelay taasi waxay ku dhalisay Cabdiraxmaan inuu murugoodo isla markaana uu walbahaaro rajabeelna uu noqdo balse maxaa dhacay Cabdiraxmaan ma uu soo rajo dhigin ee arinkaasi arin ka duwan ayuu sameeyay maxay tahay waxa uu sameeyay miyuu ka laban gaaray qorshayaashiisuu doonayay maxaa la gudboonaaday Cabdiraxmaan ma rajabeelkiibu ku sugnaa muxuu bulshada hadda la wadaagaya waa su'aalahan doonayo dhageyste daawade maqle inaad markaasi ka bogotid oo aanan qof kale u yeerinay aan u yeero qofka aan ka sheekeynayo isagoo 17 jir loo sheegay inuu aragga beeli doono hase yeeshee maanta kamid ah hogaamiyaasha ugu sareeya ee Fahan Organization hadal badan haan buuxsho aan barnaamijkii ku soo dhaweeyo libintii iyo guulihii kala duwanaa ee uu noloshiisa ka gaaray Cabdiraxmaan Muumin agaasimaha guud ee Fahan Organization Cabdiraxmaan soo dhawo waa ku salaamay gacanta ku soo taagay ana ku arkay mashaakil manaan aragga kuwa Cabdiraxmaan warbixinta yar ee kooban waxay ka turjumaysaa noloshiisa soo martay bal dadkan ku daawanaya ee aad doonayno bal inaad tusaale u noqotid noloshu waa cadaan iyo madow noloshu waxa la yiraahdaa waa farxad iyo murugo ka soo gudubtay murugadii maanta hogaamiyaha tahay agaasimo guud baa tahay sidee kugu suurta gashay inaad ka timaado godkii murugada aad u soo leexato hoyga farxadda والله runtii hadda alxamdulillah ilaahay baa dadka siiyay awood soo alxamdulillah ani ilaahay awood i siiyay oo inaan ku sii darsan karana waxa dhihi lahaa aniga reerkayga hooyaday soo korisay iyo walaalihii la soo koray oo iyo saaxiibay waxa Ingiriis lagu dhahaa support system af Soomaali ma aqaan sida lagu dhaho in qofka garab siiya ama garab istaaga so alxamdulillah support system kayga ani caawiyay oo dhahay warniyo meel baa fadhidaaye fadhiga ka kac oo wax soo qabso alxamdulillah saaxiibay baa school itusiyay oo schoolan wuxuu ku baran karo iyo computer sida loo isticmaalo iyo shaqo sida loo raadsan lahaa si wanaagsan so alxamdulillah ani dadkayga waan ku faraxsanahay inaad gurmadka heshay qoyskaaga iyo asxaabtaada ta halka inoo dhig laakiin dadaalku qoyskaaga iyo asxaabtaada kaliya ma
adigay kugu saabsan tahay adiga laftigaagu waad rajo beeshay markii lagu yiri waxaa laga yaabaa inaad aragga beesho aragguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aadamuhu oo ilaahay hibo u siiyo in markii aad rajo dhigtay ee aad qolka isku xidheed murugootay maxaa kugu soo dhacay oo maankaaga bedelay oo maanta inaad tahay qof mutacalina isagu ishaga iskiis u socda communicationkiisu wanaagsan yahay ama af Soomaali ha noqdo ama af Ingiriis ha noqdo fariimihiisa qoraya maxaa ka dhigay marka laga tago dadaalkii ku siiyeen qoyska iyo asxaabta wallahi waxay ahaan kartaa ma aqaan aniga ma jecli la ani iska hadlo laakiin runtii ku sheego waxa waaye waan fakaray oo markaan aniga rajo beelay waxaan jiray wax walba waxaan karin baa isku sheegi jiray waxaan ma qaban kartid reer ma lahayn kartid shaqo ma wax qaban kartid waxay noqoto boo aniga wax iska dhaadhicinay laan wax qabasan si wanaagsan halka aad sanado ka hor joogtay qof baa joogayna daawanaya aduunsan ina daawanayna oo aragga la yahayna ama aragga beelayna waa qadar alle ina dhageysanaya qofka saas oo kale marka laga tago waan u tagi doonaa hay'adan fahan organization waa sheego kale laakiin inay hay'adu dhalato adiga ayaa ka mas'uulka ahaa laakiin maysan iska dhalan Soomaa waxbay ku timid marka waxaan doonayaa qofka sidaadoo kale marxaladii qalafsanayd soo maray maxaad u sheegi kartaa oo fariintaad gaarsiinaysaa maxay tahay wallahi waxa waaye qof mustaqbal ku yeelay iyo qof rajo ku siinayo adiga ahaan ma jiro muhiimadana waxa waaye inta adiga iska dhaadhicinaysid waxaad qaban karin iyo waxaad adiga isku yeeli karin oo mise isku qaban karin intaad listkaas suubinaysid waana waxa ku dhihi lahaa waxa ka fikirtaa waxa qabsan kartid waxa adiga isku qaban kartid oo mustaqbalka adiga isku yeeli kartid shaqo idaad doonaysid shaqo waa qabsan kartaa reer idaa rabtid reer waa lahayn kartaayo waa bixi kartaayo meesha rabtida mari kartaa adigoo awood leh iyo si wanaagsan in waxa jira fikir guracan ku soo sheegay markaan barnaamijka furay oo dhahaya qofku hadii qayb kamid xubnihiisa uu beelo ama aragga oo kale tusaalaan oo kale ma noqon karo qof wax barta ma noqon karo qof hal abuur leh ma noqon karo qof wax hogaamin kara arrinkaasi waa fikir guracan ama khaldan adiguna waxaad kamid tahay dadka intaaba waa been yiri waa adiga hadda shaqeeya waa adiga mas'uulka waa adiga rajooyin kala leh waa adiga safra marka dadka nooca fikirka qalafsan aaminsan maxay tahay iyagana fariintooda ee dadka niyad jabiyo ana waxaan leenahay waxa waaye wax adiga jaahilnimo ignorance sax jaahilnimadaasna waxa keenaysa waxa waaye wax la barnin dadka idee arkaan qof oo wax qabsanaya biri markii qof kale imaadana oo baahi gaar qabo idee arkaan waxay dhahaan adiga saaxiib wax waa qabsan kartaa ani shalay waa arkay qof oo awood leh iyo xornimo leh adigana waa lahaan kartaa so laakiin dhibaatada jirto waxa waaye anaka Soomaali markay baahi gaar arkaan mise baahida markay arkaan anaka waxa iska dhacdhicinayna ilaa waxba qabsan karnin qofka baahida gaarka leh ilaa waxba qabsan karin oo ilaa awood lahayn anigana waxaan ahay dadka dhaho that's just not true dad jiro oo dhaqtarooyin ah iyo looyaro iyo wax walba ka fikri kartid dad baahi gaar leh oo shaqadaas qabto and dadka oo fikirkaas qaban aan waxaan dhihi lahaa lugooye baa tahay sababta lugooye ku tahay waxa waaye inta qofka garab gali lahayd oo dhihi lahayd waxaan waa qabsan kartaa qofka meel ay fadhiisinayso adaa lugoonaysid mucjisadaasna aniga ma doonayo waxa rabaa hay'adan waxa u furnay waxa waaye jaahilnimadaas ilaa baabi'ino oo iyo fikirkaasi guracan fikirka khaldan in Cabdiraxmaan hadda waxa tahay qof isku filan sideed noloshaada oo maaraysa ushan meeqay kugu qaadatay inaad barato ama qaabka loo isticmaalo in adeegsiga aaladaha sida telefoonada in internetka laptopka waxa dhan bood isticmaashaa maanta markaan wada hadlaynay adaa telefoonka iga qabtay adaa ii soo jawaabay sidee kugu suurta gashay wallahi aniga nin oo aad iyo aad u lucky ah nasiib leh oo haddana also the af English waxa lagu dhahaa privileged aniga qof privileged baan ahay
haybad gooniya oo ilaahay qofka siiyo alxamdulillah so aniga Mareykan aligu dhalay oo aniga marka arga beelay Mareykan baan joogay dad badan ayaa jiro oo markay arga beelaan situation mise adiga xaalad ka adag xaalad wanaagsan aan ku jiro taad adigu fursad hesha aan helin taasi kala hadalka u dhigo sax so aniga alxamdulillah af English waan aqaanay oo af Soomaalina waan aqaanaa alxamdulillah af Soomaaliga aad ma fiicno laakiin af Soomaaliya inta alla mahadiyo ku soo markaan aniga arga beelay iskuulkan aaday waxa la dhahaa Colorado Center for the Blind markaan aaday iskuulkaasna waxaan soo bartay ushaan cuntada sida loo karsado iyo kaliya sida u degnaan lahayd halka ay balaan cuntada ma karsan kartaa jikada geli kartaa haddaan kaliya degan oo dhinaca magaalada anaa dhinac ka degan oo rag indhahooda qabaaban cunto karsanay arrinkaasi waa talo wanaagsan oo rag badan oo ka xishooday inay wax karsadaan hadduu Cabdiraxmaan wax karsan karo isagoo markaas aragga beel ku soco hadda adaa wax karsatid adaa labisatid adaa wax kasta qabsata hay aad iyo aad gurigayga anaa dhaqdo anaa gurigayga maamusho computerkana waan bartay oo wax kala qoraal oo dadka baahi aragga lagu talagaro braille loo dhaho baan bartay oo shaqadeeda wax ku qabsadaba waa taas oo alxamdulillah waxay u qaadatay intaas dhan ilaa barto adiga 10 bilood camal 10 kaliya ma sha Allah alxamdulillah Cabdiraxmaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ituso itaabsi adiga itusti itaabsidii waa tahay waa maqalkii waad maqlaysaa laakiin tustiin anaa ku haya waata male ituso itaabsi adigu waxa tahay tusaale socda shalay waxay dhaqaatiirtu kuu sheegeen in araggaaga aad beeli doonto qadar alle way ku timid haddana caafan ahaan bay sii ogaadeen waad rajabeeshay aduu 17 jir markaad ahayd kadibna 24 jir baad ku weyday laakiin waa ka soo kacday marka tusaale wanaagsan baad tahay waxaad furtay hay'ad la yiraahdo fahan organization fahan haddii la fasiro waa wixii la fahmayay waa wixii la baranayay maxaa kuu kalifay ma dhihi karo inaad hay'ada furto laakiin oo dee baahidiiba adaa soo maray aniga ku dhahayo tusoo taabsi baa tahay laakiin hay'adan maxaad ugu tala gashay maxay yihiin qorshayaasha aad ka damacsan tahay aniga waxa dhihi lahaa jidkaas waan soo maray jidkaasna wallahi jirto dhibaato badan oo jidkaas nigu sugayso hay'adan idin naga caawin karto dhibaatadaas waxa naga caawin karno insha Allah waan naga caawinaynaa oo idin noqoto resources state local federal resources waxay noqoto idaan tusin karno idaan naga caawin karno meesha aadaysid each step by step idaan naga caawin karno insha Allah waa doonaynaa waa gartay hay'adan marka fahan waxyaabaha kale ee aad leedahay alla ilaaha waad ka caawin kartaan dadkan baahidaas qaba ee la doonayo in laga soo saaro guriyaha laga soo saaro waxa adigu aad u taqaan isolationka ama istakoorida ama inuu bulshaawi qofka noqdo oo socialize uu sameeyo uu yimaado dadkii wax la wadaago iskuna filaado maxaa kamid ah wallahi hadda waxaan qabanaa a few different programs oo kala ah programka ugu muhiimsan waxa waaye horta ciyaalka baahida gaarka leh waalidkood hadda fahan organization anaka waxa qabanaa barnaamijyo oo support group camal ah ad ku taageeraysan dadka marka ma waxa taageeraysaan dadka markaas baahida qaba mise waalidkii dhalay labadoodba because ciyaalka ma la hadli karo ciyaalka ma laga dhaadhicin karo mustaqbal ilay leeyihiin iyo ilay rajo lahaadaan adoo waalidka ka dhaadhicinin waalidkana just like ciyaalkooda social isolation cunugeedu qabo waalidkana way qabaan because anaka community ahaan dadka waxa ku caynaa baahida idaa anaka dadka ku caynana baahidana waalidkana waa lagu caay xaldaha oo waa ninkii oo ciyaalka baahi ama waa gabadhii haysatay caruurta xanuunsan marka iyagana qal waxaad siisaan tababaro ay caruurtoodana ku caawin karaan dhibaatadana ay ugu gudbi karaan qof okay waa dadka waalidiinta hadii lacala fahan aan rabo inaan dad u soo tilmaamo maxay tahay maxaan dhihi karaa waa idinka caawin karaa tusaale ahaan oo kale qalabyadan adiga aad haysato kale ushan oo kale barashadan inaan barto taleefanka inaan wacan karo taa meelyadan iiga sheeg wax soo hadda center baa aaleenane centerka wuxuu ku saabsan yahayna waxa aniga dhan soo bartay computerka
cunto kariska iyo guri dhaqitaanka iyo computerka wax sida lagu baran lahaa shaqo sida loo raadsado af ingiriiska wax walba lagu baran karo baa hadda furni oo dadka nagu imaan karaan idaa rabtid free tutoring or actual independent living skills waxa la dhaho ILS. si wanaagsan bal saddex barnaamij baa jiro hadda hay'adda la yiraahdo fahanay soo wado kaasi waa kii waalidiinta iyo dadka baahida maxaa kale oo barnaamijyada kale yihiin so saddexda ugu muhiimsan waxa waa parent engagement youth with disabilities marka la kulantaan صح wax isweydaarsataan waa parent engagement maxaa kale oo youth engagement and youth dhalinyarta inaad wajahdaan صح waa ardaydii oo baahida gaarka qaba inaad niyadda u dhistaan rajabeelka ah rajo u samaysaan hope career prep حتى waa la siiyaa college readiness college-ka aadi lahaayeen sida u aadi lahaayeen wax walba waa u sheegi karnaa barnaamijka saddexaadna waa centerkaas hadda kuu sheegayay oo qofka iduu aragga beelay nagu imaan karo oo na soo wici karo oo af Soomaali حتى idaa bis ku hadashid af Soomaaliya lagu barayaa macallimiin baa joogo af Soomaali ku hadlo oo usha ku baraayo braille ku baraayo assistive technology mise computerka sida loo isticmaali lahaa iyo telefoonka sida loo isticmaali lahaa ku bari lahaa iyo cuntada soo loo karsado iyo guriga sida loo dhaqo goorma ayay kugu dhalatay ama in teleg bad hay'adan Fahan Organization ka tirsan tahay inkastoo tahay agaasimihii guud meeqa sano ayay hay'adani jirtay hay'adda waxaa soo aasnay 2022 markaan soo guuray si wanaagsan Minnesota soo guurtay sax soo Minnesota markaan soo soo aasnay hadda ilaa markaas ilaa hadda waan wadnaa waxa jira Cabdiraxmaanow dadku fikir qaldan oo Soomaalida bulshadeena u gaar ah laakiin u baahan in la toosiyo adiga raba inaan naga caawiso in idinku markii aan dhahay dadka inta badan qaba baahida gaarka ah ama anigu waxaan u qaano qof markuu qayb kamid ah indhihiisa waxyeelo gaadho dadku inay caawinayaan iyagoo la moodo ay haddana dhibaato ku sameeyaan oo qofkii waxay ka dhigaan wax ma qabsada keen anaa ku sameynaya anaa ku wadaye marka halkaas waxa ka dhalata uqdad qofkani wuxuu doonayaa inuu caawiyo sidoo isagu aaminsan yahay laakiin idinku ama dadkan marka baahida qabana waxay aaminsan yihiin inay iyagu isku filaadaan oo haday kaalmo u baahan yihiin ayagu weydiistaan marka ciladaas sidee xal loogu heli karaa oo dadka loo fahansiin karaa war anigu indhihii laxadkii waan beelay waan ogahay laakiin wax waan qabsan karaa haddaan ku baahdo aad caawisid laakiin iga daa jujuubkan iyo xoogan sideen xal ugu helaa arintaas af English waxa lagu dhahaa help anaka su'aasha is weydiino I wrote an article on it it was helpful or hindrance so qofkina caawinaysa waxay noqonaysaa Soomaali inuu qof caawinayo ama inuu ku curiyaaminayo sax so su'aashaas mar walba la isweydiiyaa baahi walbana waa la weydiiyaa dadka and aniga waxa sax waan rabaa inaad ila wadaagtid wixii arinta kala kulan si dad fara badan ay sheeko ida ku sheegi karo aniga hadda mar dhow waxaan aaday wadanka Kenya sax Mareykanka ka baxay ilaa Kenya ani kaliya socday aniga u sheegay Kenya markaan gaaray aniga qof kale maalin kaliya baxay waxa tahay bal nin baawur wado masaajidkan aaday kabeega waa siibtay oo meel aan dhigday waa soo galay waa soo weysaystay anoo soo noqonayo waxaas dhahay bal kabaaga meesha dhigata hubso ka bacdi meesha galo bal salaada soo tuko kabeega soo fiiriyay markaan soo dhaqaaqay haddana oo aan masalada u sii socdo nin Soomaali baa gacanta qabtay waxaan dhahay hay like qof ay ugu dhagay bal yaa qofka ma yaqaana mise waa qof oo dhiciro ma naqaan so waan fiiriyay dhahay assalaamu calaykum wa calaykum salaam dhahay kaale inta soo mar af Soomaali ugu la hadlay waxaan dhahay way abu walaalkii Soomaali ma tahay dhahay dhahay su'aal ku weydiinayay meeshaan u socdo ma aqaanta maya ma meesha ka imaade ma aqaanta maya maanta idaa ku dhaho Hong Kong ka imaade miiro maysan lahayd because aniga meeshaan u socday meeshaan ka imaade ma aqaantid inta ay weydiin lahayd caawimaad ma u baahan tahay way igu dhagtay dadka badankoodna ma jeclaan ilaa la qabto oo ilaa la taabto so I think qof walba dhibaatadan qabo oo dadkeena Soomaalida bis ma aha laakiin anaka Soomaali ahaan ilaa fahamno waay dad qofka markuu u baahan yahay caawimaad ilaa weydiino caawimaad ma u baahan tahay maxaa ka kasbanaa hadda qofka ushu markuu wato wuxuu og yahay qofka inuu dhumay mise inuu
like inay dhibaato haysato oo meeshuu joogo inuu aqaanin laakiin waxa dhici karta ushaan inuu ku qiyaasoyo meeshuu joogo meeshuu soo dhaafay idoo meesha rooga ahayd mise meesha oo shamiitada ahayd inuu intaas kala fahmayo marka waxaad leedahay gurmadka ama kaalmada qaarkood uqdad bay ku sii abuurayaan ee dadka markay sidoo kale aragtaan qofka weydiiya oo dhaha hebelow miyaan ku caawiyaa hadduu haa dhahana waa sidii la rabay haddii kan hawshiisa isaga sidaas ha ku wato ma sideen ku caawiya si fiican ushani nagu soo celi ushani waa mucjiso kale sideed marka ku dareentaa markay gidaar tahay iyo markaad baska raacaysid iyo midda kale mucjiso kale tahay waad safartaa oo Kenya iyo maxaa la yiraahdaa Tanzania maxaa intee kala tagtay Kenya waa tagtay Uganda waa tagtay South Africa tagtay London wadamo fara badan anu soo marin baa soo martay adaaba iga safar badan marka ushan waxyaabaha mucjisada ay wadato maxaa kamid ah oo qofku inuu bartay tahay ushan waxa ku saabsan tahay waxa way dareemkaasna waxa ku kala garan kartaa idaa shamiito saaran tahay ushan dhawaaq ee leedahay dhawaaqaasna waa afkeeda waxa way birtaas idee bir kale ku dhacdo dhawaaqay leedahay birtaas idee shamiito ku dhacdo dhawaaq kale leedahay iduu roog taabto mise iduu shamiito mise laami wax kasto ay taabato dhawaaq gooni oo ku fahmi kartaa marka astaantaas taraaysa haday dhawaaqi birta iyo halista leedahay wad ka istaagaysa soo hadda laamiga iyo shamiitada oo dadku ku socdaan jidka agtiisa haday koordhoorka iyo laamida caadiga dhawaaq iyo laamiga waa la kala fahmi karaa so laamiga dareem iyo dhawaaq uu leeyahay shamiitada oo dadka ku socdaan laamiga waxay leedahay dareem iyo dhawaaq si wanaagsan so waa training bilay qaadanaysa qofkii inuu kala fahmo dareemahaas iyo dhawaaqahaas markuu kala fahmana qofkii waxa way hadda training inuu sii barto oo sii wado dadka badankoodna waxa way qofku markuu training ka soo baxo Soomaalida badankood lagu arkaa waxa way qofka u baranaya 9 bilood mise 6 bilood mise 10 bilood ka bacdi guriga markay aadaan waxa la dhahaa ushan maxaa ka rabtaa meesha naga dhigo aan garabkayga kala qabso ana ku wadaaya so dadkii waxay soo barteen ma sii wadayaan oo way ilowayaan ilaa training haddana ku soo noqdaan waa mar kale si wanaagsan usha marka waxa leedahay qofkii waxaad ina maqlaya war ushiina kalsooni ku qaba ushiina ashirkeeda wata isku tashada waa gartay aalada kale oo telefoonka ugu soo dhacaya waad qabanaysaa textiga waad ka jawaabaysaa سأجرب ولا فانسيتها telefoonka waxa waaye qofka aragga qabo wuxuu arko uu taabanaya صح ish indhaha isticmaalaysa anigana waxa waaye telefonkayga waxa u bedelay auditory so telefoonka waxa ku qoran aniga wax ii sheegaya telefoon meesha aniga l aan taabanay ama la isagu wuxuu ku leeyahay l so ish cod taabanaysa hadda tusaalana waxa kale waxa rabtaa inaad dhahdo in hebel is so English ahaan oo kale call me oo kale marka uu ku dhahayo C A L L then sendiga marka waxa leedahay marka diraysidna meesha taabanaysa ma sha Allah in gabagabadii barnaamijkan ku sii shaqeynaa waxaan doonayaa ururkan ama organization kale fahan oo magaciisa la dhacayba oo ah run ahaantii ka turjumaya xaqiiqda dadku waxay yiraahdaan marka aad wax weydiinaysid diiniyan xataa way tahay ask the fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ask the scholars maanta adigan wax weydiinayna waxa jira ururo fara badan oo barnaamijkan hadda aad ku jirto ku jira oo diyaar waa inay dadka caawiyaan ama ha noqdo inay baraan usha sida loo isticmaalo telefoonka laakiin su'aasha ka taagan waxay ahayd waxa la yiraahdaa qofka Soomaalidu waxay tiraahdaa dab marka qaar ma haween mar isticmaalo iska dulqaado dab ninkii ku gubtaa deebtiisa ka hor deebtiisa waa dambas mar haddaad gubatid mar labaad damkaas ku boordaysid iyagu ma soo guban dambaskina ma kala garanayaan oo waxaan ka wadaa qof caafimaad qabo 6 salaxaad u dhan tahay dareenka uu dareemi karo qof bini aadan oo indha beelay ama aragga waayay ma dareemi karo kuwaas ma uu indha beelin Soma ururkaaga laakiin waxyaabaha kaga duwan yahay ururada kale adaaba soo maray wixii walbahaarkii baa soo martay rajadhigii baa soo martay waxa soo martay inaad rajadhigi ka soo baxdo rajo yeelato haddana maanta ilaahay baa hadiyad marayso inaad tahay agaasimaha guud ee hay'adda fahan nin ismaamula safra suudkiisu xiran yahay kaale araga marka
maxaad markaa rabaa waxaan rabaa inaad dadkan na dhegaysanaya ee aragga iyo baahiyaha kala qababa arag keligeena ku koobnaanba maxaa fariin ah oo dad gaarsiina leedahay bal waatan fariinteeda cabdiraxmaan ahaan أنا واحد إيه لها ولا ليالو رجها بيننا قفك باهيد جارك قو باهيد وحي نقطها نقطة وحي ردها نقطة رجدينا هأوغلاننا إلى نجربت فينا أنا واحد ليه كرا أنا قاعدنا وقف آد ونسي بدن بانهاي وحان لها ضد إعاوية وضد الريح وربح وحسو قبصو إيو situation opportunity baan lahaa ilaa aniga wax qabsado dad badan jiro adduunyadan joogaan oo baahi gaar qabo oo waxba qabsan karin ayakana ma aha dhibaatada waxa waaye xaaladda ku sugan yihiin societal standards of Soomaali ma aqaan sida lagu dhaho Soomaali ahada laakiin societal standards hadda maanta adiga Abdiraxmaan waa iga yaabtay oo wax dhahday adiga kaliya baad degan tahay oo cunta karsan kartaa wax walba maanta ku sheegay waa wax oo adiga surprise kugu ah waa la yaabtay waxaan rajeynayaa insha Allah maalinaas ku soo noqon karno ee taas dadka la yaabeen qof oo baahi gaar qabo oo wixiisa qabsanayo asaga maamulnayo oo isku filan exactly so insha Allah aniga waxaan dhihi lahaa walaalayaalo ha rajo beelina qofni dhahayna meel fadhiiso ha oglaanina dad badana aniga isku dayeen inay iga dhacdhiciyaan ilaa aniga dawladda wax ka qaata on macnaha SSI iyo PCA iyo wax lacag qofka la haynayo aniga badankood waan ka diiday oo waxaan dhahay aniga qof mushaari baan ahay oo waa shaqaystay oo aniga isku filan so aniga waxaan doonayaa maanta qof oo chance ka haysanin ilaa wax qabsadaan beri idaa chance-kaas u yeelno mise idaa siino ilaa aniga sii ficnaadaan dad oo maanta aniga waxaan nahay qofka oo la dhaho wiilkii oo aragga la mise wiilkii baahida qabay oo wax qabsado waxaan rabaa berina 10 qof ilaa iga soo hormaraan aniga maalinta li dhaho waraa waxaad dadka baraysid iyo waxaad qabanaysid ma loo baahna mar maanta adaa wax bara so dad iga fiican baan rabnaa ilaa meesha soo galaan oo dad aniga awood badan oo iga aqli badan baa adduunyadan joogo oo la rabo ilaa wax ayaga dadka baraan so insha Allah ha ku daahina oo rajo beelina waa maasantahay waa tahay daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa in kaga hadlaynay fikirkii ku raacnaa ee ahaa haddii qofka bini'aadanku uu waayo ama beelo aragga intaa macnaheedu tahay inuu rajo dhigo isla markaana uusan bulshada hogaamin karin waxna baran karaynin haddaba waxaa hortiina fadhiya tusaale nool oo ku muujinaya in arrinkaasi uusan sax ahayn oo ay tahay fikir khaldan oo ay tahay in laga tanaasulo oo qofka bini'aadanka ah uu tahay inuu soo istaago oo uu shaqaysto waxbarto isla markaana uu noqdo hogaamiye sida Cabdiraxmaan Muumin oo isagu ah hogaamiyaha hay'adda Fahan Organization oo ah hay'ad u taagan taakulaynta garab istaaga rajo dhigga dadka markaasi baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan dadka markaasi laxaadka ama indhaha ama aragga beelay oo doonaya Cabdiraxmaan inaad ku soo biirtaan hay'addaasi isla markaana ay idinka caawiso sidii aad u noqon lahaydeen dad qaba rajo leh hami iyo higsi ay adduunka kula tartamaan isla markaana ay noqdaan dad isku filan oo aan noqonin dad ku daba taagan oo waxa ay qabta ama waxaas nasiya aan ahayne dad noqdo inay iyagu iskooda u qabsadaan haddaba haddii ay jirtay aad shaki ka qabtay ama ay jirtaan ehel iyo qaraabo kula dhashay oo shaki ka qabtay inaysan arrinkaas samayn karaynin isu soo taabsi waxaa kuwa Cabdiraxmaan Muumin agaasimaha guud ee hay'adda Fahan oo isagu soo maray rajabeel haddana ah rajo buuxa haysta oo haddana ku taamaya inuu isagu u faa'iideeyo kuwa rajada laha tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan aniga iyo Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee Fahan waxaan idin leenahay maalintu hayni macnaato habeenku hayni wanaagsanaado godka ka soo baxa ilayskana imaada